بسم الله الرحمن الرحيم. أولا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كليب كان يروح كهذا دونا إن شاء الله بوق جوابها امتحانك وسيرد وحبرشة إيه سوماليا نقيبتا وحكو قرن تلا وطلبحين أرضي مركز وتحراعيو إلا يطبان قدب جاريو نقيبتا كوات وحكو قريسا مقعادة أو أفران أما مقعاد استحنا قريسا قيبتا نحكو قريسا دوكسيق مركز يا أرضي كتهاي sidoo kale waxaa ku qoraysaa xarunta aad imtixaan ku galaysid roll numberkaada fasalka markaas aad tahay maadada galays iyo sidoo kale waxaad ku qoraysaa taariikhda qaybta hadda markaas labada qayb oo ku qoran code-ka labadaas qayb waxba kuma taabanaysid marka qaybta code ku qoran ma taabanaysid labada nooc code ku qoran tahayba lama taabanayso sababtaas waxay tahay code-kaas waxaa qaabilsan waa qaybta wasaaradda ayaa qaabilsan inay markaas ku qortaan lamarooda qaybtan kalena waxaa lagu qori doonaa natiijada oo markaas maado walba waxaa keentay lagu qori doonaa oo booga jadwalka noqon doona marka waa inaad xogtaasi dhammaystiran aad u fiirisaa marka booga aad qoraysid adoo ka tixraacayo qaybaha hadda aan soo sheegay haddii noqon lahayd qaybta code-ka hadda markaas aad u baahneen in magacaadu saddexan yahay iyo sidoo kale inaad diyaarsida laga rabaa fasalka aad tahay iyo xarunta markaas imtixaan ku galaysid oo aad fadhisid sidoo kale tala bixintaas inaad qaadataa hadda aan halka hoos ku soo xusay ayadana mid muhiim ku ah natiijada imtixaanka ayaa halkaas lagu soo muujin doonaa kadibna waxaa lagu soo dhigin doonaa oo kaliya maado walba intaa keentay ayadoo markaas laga tixraacayo resultiga maadooyinka waxaa keentay booga gudihiisa markaan guda galno qaabkaas ayuu u samaysan yahay booga qaybtaas waxaa ku qoraysaa su'aalaha lambarka ee tahay tusaale ahaan haddii tahay su'aasha koowaad su'aasha labaad halkaas ku qoraysaa si la mid ah marka intaas dhamay sidoo kale qaybtan kale waxaa ku qoraysaa su'aasha waxa ay tahay iyadana waa qaybta jawaabta su'aasha ah haddii ay tahay goobagelin oo kale waxaa u sameynaysaa inaad dooratid halkan ku qorto lambaradii qaybtan kale inaad ku qorto sidoo kale su'aashii marka buug waa inaad iska qurxisaa si natiijada kuu soo bixi doonto ay noqoto mid qurux badan oo wasaaradda macallimiinta saxi doonto insha Allah ay ka helaan laakiin haddii fartaada ay noqoto far aan la fahmi karin waxay taas daliil u tahay in imtixaankaada oo markaas hoos u dhac badan uu ku imaan doono farta xitaa waxaa lagu qiimeyn karaa natiijadaada insha Allah arday walba ha dadaalo Allah idin fududeeyo dhammaan ardayda fanfoorka ah ay sanadkan imtixaanka u fadhiisan doonto insha Allah wax yar oo kooban ay ka dhiman yihiin halkaas ayaan ku soo koobayaa asxaabta u sheergaray assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu